maxaa la dhaayay waxaan idin sheegayaa waxa la yiri gobihee maxaa la yiri gobi way licdaaya ma jabtaa la yiri ma garateen ciidanka new police-kana wuu joogaa kow dhaaya madaxweyne cabdi maxamuud cumarna wuu soo noqon waa la soo dayn waa la soo fasixi ma garateen tartiibsadaan idin yiri tartiibsada iswaalwaalina you guys with me may maqashaan heesta liyu booska sheergaraya waryaaba laangaalka ay ku badan baan u malaynahayaa shargaraya waxaan negative ku arka walkayga waa baabalaan mahadsanid shargaraya beena maaha
haliiceliyu booliso waan gartay waxa idin neceb haliiceliyu booliso waa idin salaamaya dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu aad baa idin salaamaya marka hore waxaan rabaa inaan idin sheego horta negative ma baahne aniga reality-ga waxa waaye the real case is I don't need a negative qofkii in yar new police iyo cabdi maxamuud cumar wax ka sheega wallaahi waa dhaartay oo billaahi asmaada ilaahay baan ku dhaaranaya magaciisa horta balooga yaqaana foreverna fareen xataa ma noqon doono runtaan rabaa inaan idin sheego waxaan rabnaa inaan ka hadalno laba qodob qodobka koowaad waxa waaye waqti ma haysto runtii dadaa meel igu sugay waa ka xumahay qodobka koowaad waxa waaye mudane cabdi maxamuud cumar madaxweynaheena qaaliga ah in jeclayn waxaan rabaa inaan u sheego dadkan habta ku haya it's true cabdi maxamuud cumar asaga new police samaystay asaga new police ka sameeyay asaga maxaa la dhahay ii sheegay u sameeyay wadanka asaga shabaab iyo cid walba iyo cadow iyo balaayo oo dhan maxaa la dhahay ka difaacay wadanka quruxda aad aragtaan ee jigjiga iyo meel kasta nalalka biyaha eeriboorada wadooyinka asaga idin sameeyay budget ha ahaato of course laakiin asaga sameeyay qofka bini'aadamka lama xaqiro waxa uu qabtay cabdi lama xaqiro cabdi maxamuud cumar waxaan leenahay sida ugu dhaqsaha badan waa in la soo daayo magaciisa Allah raajiyo madaxiisa Allah raajiyo cadawgiisa waxaan idin leeyahay dhulka hoostiisa commentigayga waa ku noqon doonaa hadhow meel baan ku degdegaya waxaan rabaa inaan idin sheego idinma soo qaban kara unfortunately telefonka iga hadlaysan markaan dhoo soo qabatidba wuxuu NDU taabanay sidii haday live-kii oo kale toole marka cabdi maxamuud cumar waa inaa free tiraadaan waa mudaharaadayna waa soo qaban qaabilayna baraas release-keena soo qoranayna waa hubadsanayna meelo badan aan tagayna qoraal badan aan sameynayna dagaalka waxaan iridal iyo dibadba waa in la kacaa shacabku I don't know waxay u aaminsan yihiin war maxaa la idinku akhriyay maanta ma maqlin mudaharaad soo mudaharaadeen ma mudaharaadeen waa inaad mudaharaadaan dhagahaygu ma soo gaarin mudaharaad mudaharaadeen maanta waa inaad everyday mudaharaadaan gobolada shacabka la hadlay qorraxay doolo dooh maxaa la fiiq goday afdheer meel kasta waa inaad ka mudaharaadiin everyday jigjiga waa inaad mudaharaadiin mudaharaad waxa waaye baawurtaan iyo nabadaan ilaahay baan ku dhaartay jigjiga waan tagay markii ugu dambeysay horta 2015 bay ahayd laakiin markaan anoo keligay joogay oo 2013 ahayd oo 14 ahayd oo maxaa la bilowgiisii ahayd oo ka soo tagin waxa waaye maxaa la dhahay wallaahi intaan ka lugeeyo maxaa la dhahay magaalada dhexdeeda ban Sheekh Nuur Ciise lu ku tagi jiray saa wax ii fiiriyeen inaan arki jirin saa haddana wiilashiin yararka baa intii la soo qabsado maanta waxaan u jeeday wiil intii la soo qabtay nin uu yiri amxaara ma aqaani oramo wuxuu ahaaye jigjiga dhexdeeda uu yiri lacag bay iga qaat oo lacagtii dhulka taala loo dhiibay lagu qasbay qoriyo lagu qabanay waxaasi ma life ba ma noloshaas ku jirteen ya war ma noloshaas ku jirteen noo kumiinaan jirin reality-ga xaqiiqdaynu isu sheegayna waxana fiiri qofka waxa la yiri gaalka dil gartiisana si wixii qalad ah ee dhacay waanu isla qiraynaa taa waxa weeyaan cidina ma diidana ha taa waxa weeyaan cidina ma diidana waxa ay dhahay taa cidina ma diidana la iskuma diidana taa laakiin waxa annaga dhexdeena annaga xalisanayna ma ahan inay gacan saddexaadna soo farageliso ma ahan cabdi maxamuud cumar waa in la soo celiyaa ma suurta galaysa in dadkii kale oramadii qoliyii kale Etoobiyaanka ah Tigreegi nooc walba aadaan dambiilayaashii kuwii kale oo Soomaalida ah cabdi la shaqaysanay nooc walba laha qabiil walba laha oo Soomaaliya in ay joogaan cabdi kaligiisna la qabsado loo maxkamad baa la saaro oo la bahdilo oo TV laga soo daayo waxa weeyaan bahdil bay nagu tahay waxa ma qaadan karno damiir baanu leenahay dadnima ilaahay na siiyay wax aan qaadan karno iyo waxaan qaadan doono midna ma runta markaan idin sheego taa marka laga tago waxaan codsanaynaa sida ugu soo dhaqsaha badan in la soo daayo cabdi maxamuud cumar marka ka bacdi baanu wada hadli doonaa oo waliba ciidamada federaalku ay ka baxaan dhulkeena oo maxaa la dhahay annaga ciidan haysana annaga ismaamulayna markaan idin baahanaanu idin yeedhaynaa haddaad diidaan Soomaa waanu iska kiin celinayna ma jirto sheeko kale ma jirto waxaan kaloo rabaa inaan gubaabiyo ciidamada new police-ka waxaan idin leeyahay guuleysta
horay u socda garabkiina allaha galo baaqeen waxa weeye cabdi maxamuud cumar in la soo daayo maahane wax kale oo soconaya inaysan jirin ciidan new police oo maamul ka qayb qaadanayana inuusan jirin maxaa la dhahay waa in cabdi maxamuud cumar la soo daaya midda kale oo aan ilaaway waxay ahayd oo rabay inaan u diro maxaa la dhahay baaq walaalkay Mustafa madaxweynaha dowlad deegaanka hadda madaxweyne ku-xigeenka ahna ku siisimaha madaxweynaha waxaan rabaa inaan u diro baaq ah Mustafa walaalle horta anigu waa ku taageersanahay no matter what horena waa kuugu sheegay mar walbana waa ku leeyahay because annagu ma doonayno bartii cabdi maanta la mariyay in adigana beri lagu mariyo oo intii dadkaaga lagugu diro oo lagaa hor keeno oo la isku keen diro oo ma aragtay in hadhowna la dhaho Mustafa sameeyay we don't want that marka taa laga tago waxaan rabaa inaan idin sheego waxaan rabaa inaan walaal ku sheego Mustafa waxa weeyaan waxaan ku sheegi rabaa Mustafa hadaa tahay maxaa la dhahay horta qofku sidiisa wuxuu madaxweyne u yahay last decision inuu asagu sameeyo last decision inuu qofku asagu sameeyo taliya kasto aad leedahay iyo cid kasto kula shaqeysa iyo staff kasto aad leedahay the supervisor the manager the boss the president the secretary adiga last decision is your own it's on your own hands gacantaada ay ku jirtaa saa marka ay tahay waxaan ka codsanaynaa decision kasta oo lagu sameeyo qofka ugu maaragtay dambeeye ee go'aanka gaari kara waa adiga marka inaad noqotid qof decision maker ah ka fakaraya waxa hadda jooga ka fakaraya waxa soo socda ama waxa iman kara ka fakaraya dadkiisa sidoo u soo jiidan lahaa oo baanid in dadkaaga laga hor keeno waxaad u baahan tahay inaad noqotid nin dadkiisa soo jiita walaalihiis qanciya Soomaali qolo walba anu reer hebel ku dhimahayo xaq bay u leeyihiin cid kasto kililka degta inaad qancisid xaq bay u leeyihiin wixii awoodaada ah waa hadaad adigu leedahay awood buuxda oo adiga xilkaaga adigu aad u madax banaanta hadii aadan u madax banaanayn waxa weeyaan waxba kugu ma haysan waxa lagu haysta ma jirto laakiin you need to be the decision maker inaad noqotid baan maaragtay baan anigu arintaasan kugu run ahaantii kugu guubaabinaya oo aan kugu baraarujinaya walaalkay aad baan kuu salaamaya dhamaantiina waa idin wada salaamaya adiga iyo inta kale oo madaxda ah oo maaragtay joogta wadanka waxaan kale rabaa shacabka inaan dhaho madaxweynaha la soo dhaweeyo waqti hal la siiyo hawlo badan baa iska jira ma ahan waa inaad ka fakartaan dhinacyadiina waa harkiina iyo hareerihiina iyo gadaashiina waa inaad eegtaan waa inaan kaliya ka fiirsanin boss nalama siinin maxaa la dhahay waana la qadiyay maxaa la dhahay say ku dhacday iyo qaylo iyo midna taageeradiina aad badisaan madaxweynaha aad soo dhaweysaan siday wax ku suurta gali karaan inaad fiirsaan mararka qaar kood waxa laga yaabaa in la isku xumeynaayo lagana yaababa inaysan maxaa la wax madaxweynaha gacantiisa ka sareeyo ay yihiin la rabana in adigii iyo asagii la isku kindiro oo la rabo in Mustafa la dhaho qoorta la idin galiyo waxa laga yaabaa inay dhici karto ay noqon kartaa in la rabo Mustafa dad kale inay rabaan inay fashiliyaan oo ay rabaan inay maartay dhahaan ninkan xilkan ma qaban karo intii la qabsado oo geesaha la qabsado si dad kale loo keeno ma fahmaysaan are you guys with me marka la shaqeeyo walaalkiin ha ka hor imaanina cid kursi la siiyay iyo cid aan la siinin waxa weeyaan waa inaad xaq waxaad u leedihiin inaad la shaqeysaan xaq waxaad u leedihiin idinkoon qaylinin banaanka qayliinka bahalkii dhihin inaad u tagtaan la shirtaan miiska la fadhiisataan tiraadaan walaalow hadday adiga waxaan awoodaada ku jiraana waxaan xaq u leenahay shalayna dhibalayaal baan ahayn maantana waxaan aragnaa inay maaragtay qaladkii uu maaragtay wali sii jiro waxaan rabnaa waxaan xaq u lahayn baan rabnaa haddii aysan gacantaada ku jirin adiga cid waxba kuuma haysato anaga wiilkeeni baa tahay mar rabna in la ku kaadiro iyo in la isku keen adeegsado waxaan rabaa inaan marka u sheego oramo iyo cid kasto oo Soomaali oo ciyaarayso isla waxa tiin dad smart ah inina smart ahayn failure baa tiin dad waxa tiin aan leadership waxba ka aqoonin
sababtoo ah qofku markuu leadershipka wax ka yaqaano waxa weeyaan qabiilku waa la tacaaruf weeyaan laakiin siyaasaddu waxa weeyaan laba qof oo kasta oo siyaasadda ku heshiin karta oo isku aragti ah waa inay israacdo oo isku raacaan wixii ay ku heshiiyeen ma ahan inuu xumaan noqdo laakiin waa wixii ay ku heshiiyeen oo ay dhaheen waxaana ummadda dan u ah marka waxaan rabaa Oromo inaan u sheegno waxaan anagu idinku taageeraynay waxay ahaayeen dulmi aad leedihiin idinku waad ku jirtaan oo aynu ku wada jigro tigray inagu wada hayay bay ahayd ma ahayn inaad idinku inta dulmiga diidaan annaga aad damacada inaad isku kay dirtaan oo dulmi annaga aad dib isugu kay soo celisaan waa waxaan dhacaynin waana waxaanan idinka qaadanaynin haddaad isleedihiin iska hor keena qoys ama ogaadeen ama absame ama Soomaalina waxaan la idinka qaadanaynin weeyaan cadaaladdu waa inay shaqayso hadday shaqayn weydo Soomahan de waanu dagaalamaynaa af baa Ilaahayna siiyay midiyaan haysanaa wadamo horumaray baan joognaa adduun casri weeyaan idinkuba af baad wax ku coreysateen annaguna af iyo xabadba waa isku daraynaa aad baan idin salaamaya waa idinku soo noqon doonaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.